السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. isku soo noqosho wanaagsan. maanta waxaan ka hadli doonaa waxay tahay muxuu yahay masjidka cajiibka ah ee laga helay dalka Israa'iil. mid ka mid ah masaajidadii ugu horeeyay dunida ee la dhisay 1200 oo sano ka hor ayaa laga helay saxaraha Negev ee ku yaala dalka Israa'iil. cilmi-baarayaasha dhinaca dhulka ee helay masjidkan ayaa sheegay inay macquul tahay in la dhisay qarnigii 7aad ama 8aad. waxayna sidoo kale sheegay inuu ka mid yahay masaajidada dhif ay naadir ay tahay in la helo noocan oo kale. hay-adda u qaabilsan waxyaabaha taariikhiga Israa'iil ayaa sheegtay in masjidkan la helay xilli shaqo dhismo laga sameeyay goobta uu ku aasnaa masjidkan. waa masjidkii ugu horeeyay ee da'daas oo kala ah oo laga helay dhulkaas, waxayna la mid yahay masaajidada noociisa oo laga helay magaalooyinka Makka iyo Qudus sida ay hay-addu sheegtay. qubrada lagu kala magacaabo John iyo Sharar ayaa sheegay inay adag tahay in masjid noocan oo kale laga helo meelo kale oo ka tirsan caalamka. cilmi-baarayaasha ayaa aaminsan in masjidkan ay xilligan isticmaali jireen beeraley oo maxalli ah. masjidkan la helay ayaa ah mid kor ka bannaan, mixraab leh oo imaam istaagi karo, wuxuuna mixraabka jiha ahaan u jeedaa dhinaca Kacbada ee ku taala ee magaalada Makka. waana mid ka mid ah masaajidadii ugu horeeyay ee la dhisay markuu islaamku gaaray dhulka hadda loo yaqaan Israa'iil. xilligaasina waxaa qabsaday dad Carab ah. waad ku maasan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ka heshay fadlan la sii wadaag saaxiibadaada. haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan subscribe saar, riix calaamada gambaleelka si aad u hesho muuqaalada cajiibka ah ee maalinlaha aan soo gelino. waad maasan tahay.